oo nagu dishaan adar manihin anagu dad aamusaya in kurka hore dilay jaro kubabka meermeer shaban ku dhimanaa inta dilay jarayo xaqigii xaq hooyadii kama aamusi doono kama gaabsan doono annaga aan idin nootayada waan saxeexayna nootayada lacagteeda ana bixiyay in nootayada qoran Cabdi Madoobe ay ku kalifay nootayada maanta say soo horayso eebay kugu tahay shay mooyo Faysalow shay mooyo lafaaga inaad u qajishay lafaaga inaad u xishootay inaad maanta waxaynu kaga hadlaynaa ku daaqaadaynaa wariyada caanka ay hooda garayso si kulul ugu jawaabtay taliyaasha ciidamada ee booliska ee Somaliland kadib markii xalay u soo jeediyeen eedeymo badan kuwaas oo ayna iyadu saldhig weerar ku soo qaaday ayna la dagaalantay ciidanka booliska ee Somaliland haddaba maxay ku jawaabtay hooda garays hadalladaasi ay ciidamada boolisku ay soo jeediyeen barnaamijka ayayna ku daaqaadaynaa ha yeeshee daawada intayna barnaamijka u gudagelin hadda channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaada la wadaag soo dhawaada barnaamijka haddaba daawada intayna barnaamijka u gudagelin hooda garays ayaa baraha bulshada aad u qabsatay haddaba xalay ayay ahayd markii uu afhayeenka ciidanka booliska ee Somaliland uu beeniyay eedeymo ay u soo jeedisay hooda garays oo maalin dhaweyd ay ciidamada booliska ahi u gacan qaadeen iyada iyo hooyadeed si xun ay u garaaceen iyada oo markii dambe eedeymo u soo jeedisay ciidamada booliska ee sida xun u garaacay afhayeenu hadlay afhayeenka oo ay weheliyaan taliyaal kale ayaa wuxuu sheegay in eedeymaha ay soo jeedisay hooda garays ay yihiin kuwo lagu waxyeeleynayo ciidamada booliska ee Somaliland laguna ceebeynayo sharaftooda sidoo kale wuxuu afhayeenka ciidanka booliska ee Somaliland uu hooda garays ku eedeeyay inay iyadu weerarka soo qaaday saldhigga ayna la dagaalantay ciidanka booliska ee Somaliland haddaba hooda garays soo beenisay kana jawaabaysa eedeymaha afhayeenka ayaa sheegtay inuu qofna awood u lahayn inuu ciidan saldhig ku weeraro ama uu kula dagaalamo wax caqliga galana aynan ahayn uuna rabo isaga iyo taliyaasha ag taagana ay nabaradii iyo dhaawaca la soo gaarsiiyay lagu duudsin rabo waxay tiri xaqayaga ayaa lana duudsinayaa hooda garays ayaa sidoo kale sheegtay in aabaheedu ahaa ciidamadii ka tirsanaa ururkii jabhadii SNM loona dilay isaga oo dhulkiisa iyo dalkiisa u dagaalamaya laakiin ay maanta nasiib darro tahay in shaar dawladeed lagu dulmiyo si axmaqnimo ah looguna garaaco sidoo kale waxay hooda garays sheegtay in maanta uu jirin qaran dadka u cadaalad sameeya hadduu jirana maanta ay cadaalad darrada ay ummadoo dhamme aragto ay ku dhici lahayn ayna mar dambe jiri doonin in shaarka dawladda laysu adeegsado xoog laysu sheegto shacabkana lagu dulmiyo hooda garays oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay sheegtay in hadday cadaalad weydo shaarka dawladdana cadaaladeedii lagu duudsiyo ay samayn doonaan wax aanay ummaddu ka filanayn dadkuna ay yaabi doonaan dad cararna ay la mid ahayn ay saarsan doonaan hooda garays ayaa sheegtay inay garanayso wiilashii askarta ahaa ee hooyada dhulka ku jiiday anigana dhulka igu jiiday hadallada hooda garays ay ciidamada booliska ee Somaliland ugu jawaabayso ayaa guud ahaanba qabsaday baraha bulshada ee Soomaalidu ay ku xidhiidho sida Facebook, YouTube iyo TikTok garays ayaa waxay sheegtay in aabaheedu dhintay sanado badan ka hor isagoo u dagaalamaya difaaca dalka hooyaday oo xanuunsanaysa ayaan hayaabay tiri balse askartu aniga u sheegay in hooyaday xanuunsanayso ay dhulka ku jiideen ayna dhaheen dumarka waxaa laga dilaa meelaha aan nabaradu ka muuqanayn ee ka garaacayaga ayaa isku lahaa taliyihii booliska aan cadaaladda ka sugaynay ayaa hooyaday oo la jiidayo la garaacayo waxay sheegtay in uu daawanayo korka kala socday hadalladaasi qeyrada badan ayay kaga jawaabtay hooda garays saxafiyadan bulsha TV u shaqeysa haddaba daawadayaal jawaabihii uu bixiyay iyo eedeymihii uu bixiyay afhayeenka ciidamada booliska ee Somaliland
iyo jawaabta ay bixisay Hooda Garays ayaa faahfaahinaysa sidii ay u xidhaceen iyo dhacdada kala kulantay ciidamada booliiska ee Soomaaliland waana Hooda oo sheegtay in aabaheedu ka mid ahaa ururkii SNM ee u dagaalamay Soomaaliland Hooda Garays ayaa sheegtay in haddii ay cadaalad ka weydo Soomaaliland ay ku la tiigsan doonto afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliland maxkamadaha caalamiga iyo meel kasto ay xaqeeda ku heli karto waxay sheegtay in hooyadeed lagu hordilay iyadoo xanuunsanaysa hooyaday waxay ahayd bay tiri ururkii SNM waxay ahayd halgamaa balse cadaalad ma jirto Soomaaliland iyadoo aad u canaanatay beentiyo propagandadii afhayeenka ciidanka Soomaaliland Faisal uu shalay aan ugu meel dayin Hooda Garays haddaba daawadana la yar daawo ma jirto waxay ginaadar hadii lagu yiraahdo oo lagu yiri sidaa dhe annaga ciidamada ay oran dibtan qabno ayaana faraysa inaanu hadallo dibtan qabno ayaana faraysa inaanu hadallo adigana shaqada iyo mushaharka qaadato iyo dadka ku soo diray iyo kuwa ku ag taagan kula sidaa dhe xariba hadalka ku hagaajinayay ayaa ku farayay inaad hadasho hal liba xarkaysa ma godlatay been sheego been run oo sheeg Faisal Xiiso hadii lama cadaaladda iyo garsoorka aanu anagu la tiigsanay dhibaatooyinkii nagu dhacday ay waxba nooga qaban waayaan inamadii reeraay anaga waxna yeelay ee shaarka idinku u soo xidhateen ee darxumada iyo soo jeedkay qabaan shacabka ka jaray cilqabayaasha ah ee idinkuna tiraadaan marka dadka soo cuntaan sidii bahalaha anaga idin hadli doona imshaarka kaliya waxa ku qaadataan ay tahay illa hadii umada dhaxotiino madax qarantihiin annaga arinkayga iyaga arinkayga iyo arinkooda ay soo eegi lahaydeen cabashadeedii la waxay soo gaadhay laanta ugu sareysay waxa weeyaan hadii annaga arinkayga waxba laga qaban waayo oo sida direyskiina lagu dilay nalagaga gar qaadan waayo waxa dhici doonta anaguna eelaanu ka dhalanay oo reeraanu ka soo jeedna oo reerihii heshiiyay oo isku darsaday baanu ka mid nahay haday taasi dhici weydo booliiska Soomaaliland oo booliiska qarina dawladda iyo inamada cidda u shaqeeya naga gar qaadan weydo oo waxa nagu dhacay la eegi waayo reerahoodii baanu doonan doonaa deetana qaranku iyada kaga fool xuntay oo Soomaali weyn marxaati u tahay oo reer Soomaaliland marxaati u yihiin oo ceebtoodu dibadda taalo ay arrinka gacanta la soo gali doonaan haddana maanta arrinkayga gacanta la soo gelin hadii lagu yiri hadal Faisalow anaga dhibaatada nagu taala iyo hooyaday feerjilibka lagu garaacay iyo aniga dhibaatada iyo dilnimaha wajigayga loo geystay ayay farayaad inaan hadlo ee waxa weeyaan aniga dhibaatada shidaalka igu shubanaysa idinkan waxa shidaalka isku shubanaya idinkoo darajooyin la aniga inaan yara isa soo kay wadaag taagteen waxa weeyaan in inta dadka ciidanka tiraadaan dadka soo marka damada dadka Soomaaliyeed ku shaambadaysaan Soomaaliyeed dulmiba xuduudo u kala samaysateen oo lahaydeen dulmi baan ugu dhacay anagu dulmi dhacayna garan mayne dulmigii baa anaga maanta nagu dhacay a sheegi jirteen dib ku beelu ka jira anagu maanaan aragay musabixi markii aniga aabahay la diray 1994 wasiirka arrimaha gudaha ayuha iyo amniga maanta markii aniga leeyahay xabad nasiib wanaag magaana xabad kugu dhicina waa laanta u sareysa ee wadanka madax meel ka sareysa oo la taabtay ma jirtay Faisal Xiiso daladiisa waxa kamid ahaa hoodoy lama soo xiriirin hogaanka cabashada war hogaanka cabashada ilaahay baan ku dhaariyay inta gar qaadaan oo gar islaam qaadaan bal dadka dhexnoo ahaado hogaanka cabashada may jananka ku xigeenka ciidamada ay ku simii jananka ciidamada ay wadanka ka si jananka ah ka sareeyo ka udhi mise hogaanka cabashada sareeya wana garso baaritaan madax banaan baarinkayga lagu sameyn doona wixii nagu dhacay baaritaan madax banaan iyo komishanka xuquuqul insaanka iyo garyaqaanada iyo warbaahinta iyo eheladayada ayaa ka hawlgali doona haddii inta dadka tacadidaan shaarar kale u xidhaan haddii inta dadka tacadid waxa muuqaalka ka xiga ee aan anigu halkan u soo galo ee maxaan ku dhahdaayay waxa iyaga waxba laga qaban waayo ee aan barta la soo istaago waana urbaadaysaane waxa idaan naga filaneen baa naga keenan doona waana calool baadaysaane waxaan umadu naga filan dhagay fard la yiraahdo waxa barateen dad inta dhibaataysan carari meeyna ilaa aan aarsano carari maayo ilaa inanka iyagu inanka yaraayo hooyaday feerjilibka ku garaacay qabto feerjilibka soo garaaco
والله إن عرري وأنا نرجسون كل اللي كتجين وأنا دتك هجردامي سنة جريا والد كود إيمان واعي أنا كميد نقولين وأنا دبعتها هي تعدي شيء جسنا ما عندك عقدة سنة وحنا برنا الجسم إذا قر كبرنا ندوني سن ورحق قفكوا هالكوا حق دركوا در ما دي بقول فلان عذاب ما أنت هرجيسة كبوين وأنجلي لها جرن معيو هو يدي بالي يجور دلي وارين هو يدي فرتيل بلوجور جرا هو تيجي لجودلو وحنا كتش الله يني حبض نقول عضو كرسور كتشيك سيلا تكسف فيصلوا إركع تدي لبح سيلا بح فيصلوا أرنك هو يدي أرنك أنا يقول عاي منه هو سمر دقيو ما اللي بيخسر دانو دي بعتها يتعدي يدل ميجن لوجيستي كما اللي بيخسر دانو halka u sareysay cadaaladda isla gaari doona cadaaladda ilaahay been isla gaari doona cadaaladda caalamka dhex wareegaysa ictiraafka ku weydeen ayeen isla gaari doona meel kasto oo aan isla yahay hiil iyo garabaad ka helaysa ayaan hiil bidi doonaa